wuxuu ahaa safar la wada xiiseynayay, qabanqaabo kadib waa la jihaystay. Dalxiisayaashuna waa ku dhawaad kontumeeyo dhalinyaro ah oo muuqaal iyo bilic kale u yeelay Gadoon oo dadkeeduna ay soo dhaweeyeen. Casuumaad kala gaar ah iyo mid guud kadib waxaa loo jihaystay meel Gadoon kaga beegan dhanka bari ku dhawaad 30 kiiloomitir si looga marqaati kaco ammaanka deegaankaasi iyo sida nabadda ay u yihiin bunaysasho iyo dhageysiga cuudka ama kamanka lagu laray neecawda carfoonaya jawiga sii hagaajiyay lama sadareemin ee la arag qorraxdii oo baalasha dhigatay.
waxaa horay loo galay ishambalyeyn iyo bogaadin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. runtii waxaa sharaf iyo karaamo leh dhammaan inta halkan lagu soo dhaweysay oo gudoomiyihii ugu horeeyo oo san nooga harin magaaladii ama degmadii Daarusalaam Kisgadoon oo nala joogo halkan oo ka xigta degmadaas 20 kiiloomitir aan ku faraxsanahay galabta horta halkan inaan dhamaano runtii farxadda darteed ana hadallada iyo
wixii aan qabo dhan xoogaa ma soo tufi karo sababtu waxay tahay waxaad og tahay haddii maaragtay ay dhab kugu dhawoobaan ama kugu rumoobaan wax badan waxaad dareemaysaa sababtu waxay tahay meeshaan inay nabad tahay inay tahay meel maaragtay qof walba imaan karo meel sidaan ugu wanaagsan dalxiiska iyo deegaan barashada iyo naacawda quruxda badan waa wax mar walba aan isku ogeyn laakiin waxaa la yiri been lagu sheego yaa been ka raacda dadka waxay faafin jireen ama waxay iska dhihi jireen laba tagi kara iyo xagga loo macnaha deegaankaas iyo dadkaas maaragtay xogaa waxa ka dhow cadawgii iyo waxyaabahaas oo dhan marka galabta waxaan leenahay iskoorkii waxaa jibiyey ama recordkaas waxaa jibiyey dhammaan dhalinyarada caasimadda galmudug dhalinyarada muqdisho ugu timid iyo deegaankii macnaha gadoon ama degmadii gadoon annagoo ah dhalinyarada ururka hirad oo ka dhisan dhammaan galmudug oo dhan maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqono dadka u soo booqasho tagay ama u soo dalxiis tagay ama lagu marti qaaday deegaanka gadoon eriyada Daarusalaam ama degmada Daarusalaam ex gadoon marka maanta runtii sida naloo soo dhaweeyay si qurux badan ilaa iyo salaamaha ama jidadka nagala hor yimid calamo iyo waxyo qoyan nagula soo dhaweeyay martiqaada naloo fidiyay hadda waxaan joognaa meel 20 kiiloomitir ku jirto ilaa hadda damaashaadka uu socdaa runtii haddaan nahay dhalinyarada ama ururka hirad oo ku faraxsanahay inaan qayb ka nahay runtii damaashaadkan maantayto oo dhammaan aan ku kala bixinayna deegaanada galmudug oo dhan way mahadsan yihiin dhammaan qof kasta oo na soo dhaweeyay ama ha ahaato maamul ama dhalinyaro ama shacab isxilqaamay runtii shaqo fiican oo shaqo badan ay qabteen bismillaahi raxmaani raxiim horta maanta halkan waxaan uga mahadcelinayaa reer gadoon weligii horta gadoon markii la yiraahdo dhigta unbaa ka maqli jiray maanta intay midba xagga u soo dhaafay dana bari xaggaas u soo dhaafay waana maqlaynay warka gudoomiyaha iyo dhalinyarada degmada joogtay iyo waan maqlaynay dhamaanteen waxaan ka codsanaynaa dadka wasaaradaha ka shaqeeya dhalinyarada oo nala socotay in sida u dhaqsiyaha badan baahiyaha ay kabanayaan dadka deegaanka u nugmeen in sida u dhaqsiyaha badan looga gudbiyo ay magacayga waxa la yiraahdaa Ayaan Maxamuud Xirsi waxaan ka mid ahay team Muqdisho ka imaaday oo maanta imaaday magaalada gadoon x gadoon Daarusalaam hadda loo bixiyay waxaan joognaa meel 20 kiiloomitir u jirta oo dhulka baadiyaha ah oo aan tagno dalxiis iyo dheendheen iyo deegaan barasho anagoo ah dhalinyaro ka imaaday caasimadda iyo kuwa ka imaaday magaalada Muqdisho qaar qurbaha ka imaadeen waxaan ku hadlayaa magaca gudoomiyaha wasalaamaya iyo gudoomiyaha dhalinyarada oo gobolka waxaan ku hadlayaa magaca gudoomiye ku xigeenka ururka samakaab team oo qaar kamid ah ay la joogaan si fiican u dhageysanay baahiyahooda xaqiiqatan baahiyo fara badan ka jira waxay haystaan oo kaliya hal dhihi kara dad iyo abni dadka meeshan jooga meel walba waxbay haysataa xaqiiqatan Daarusalaam iyo deegaanada ku xeeran dadka jooga waxa u baxa dad iyo abni wax kale uma baxaan dadkaas iyo abnigaas waxaan rabnaa in laga faa'iideysto aan xaqiijino inay tahay meel amaana oo u taagi karo qof walba ama ha ahaado ajnabi ama ha ahaado Soomaali ama ha ahaado dadka deegaanka allo wadanko barwaaha qombalaha ay jireen colaada beeleheedii ay ahaado wanbuuq lahaay bahdan jeclaan jiray loo baashaya iga dhiga oo bulshada reer gadoona soo booqayahayda irko bilda ahaya wadahan koy barwaaha aqataan haddana geelaha birqaha yaa hibadiyu dhalay ninkii baabacada qaado bulshada dhextaaga allaylehe badanka kiisa huwa isbedeli oo ana barqa mahalabaha beesha lagu yaqaan allaha barakeeyo meeshad ku badantihiin waxaan joognaa meel la yiraahdo Cabdi Qaaxo oo dhinaca bari uga beegan degmada Daarusalaam dhinaca bari waxaan ku soo dhaweynay oo nala joogo dhalinyaradaas ka kala timid caasimadda iyo Muqdisho waxaan leenahay soo dhawaada walaalayaal meeshaan waa u jeedin waa nabad waa naq
dadka waxyaabo badan oo waxaa jira iska gudbay oo la leeyahay meeshaan nabad maahan hadda gadoon meesha la ilaaha waxaan ka xignaa bari 20 kiilo aan ka xignaa wax dhib ma yaaliin dhalinyaro fara badan joogta oo nooc kasta isugu jirta wax dhib kama jiraan ummadda waxaan ugu baaqaynaa meeshaan waxaa degan bulsho fara badan oo aad baahiyo fara badan qaba waxaan ummadda dhalinyaradan iyo ummadda ay u tagi doonaan iyo intii ay la xiriiri karaan waxaan ka codsaynaa inay meeshaan nabad tahay oo ay barwaaqo tahay inay naga gaarsiiyaan isxilqaan iyo garashada ay sameeyeen mooyaane ma jirin cid ka taageeraysa dhalinyaradan safarka oo iyagu barkood ka yimid deegaano ka dhaadheer magaalada Dhuusamareeb oo ubuucda dalxiiska ahayd.